الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن شاء الله تعالى ما توعن كان دونا إيشا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك ينوه نوشغي العين حق إشأني حق تاي لو كان شيء سبق هدو شيء كهر مر لها القدر قدرت إلهي لسبقته العين إشا كهر مر لها. عائشة رضي الله عنها وحال قولي كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين. عائشة وحال قولي إن حديث روح ومتقناي قف إليسته إلا أمري وقت النبي إنه ويسيسته qofkii la ilaystayna uu ku qabaysto biyahaas waa sunnada dadka ma yaqaanaan. xadiiska hore alcaynu xaq iyo xadiiska dambe oo Caaisha warinayso inay isha ma taqaanaayo ruuxa wax ilaystay uu weysiisto, ruuxa la ilaystayna ma taqaanaayo uu ku qabaysto. alcaa'ini waa midka wax ilaystay, للمعينين وقوة لإليستي مركز ساسي أكلا مشروع سيه ساسا لوكا الجديد سيدي اللي قف لإليستي وقوة بعضي هذه وذاته. بسم الله بعد آخر النساء بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذا اسكو أخرين كرتن اسكو أخري هذا قفك أخرين كرنا هو أخري قفك حنوسر هذا حاجة عن تلقى صاري بسم الله يبريك والو أخرين تضوجر بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله يبريك إلهي مجعيسة برئك علي حنون كان الله كبرير الله كعافية من كل داء يشفيك حنون والبنا الله كعافية ومن شر حاسد إذا حسد حسد كسنا الله كعافية بسمك إله الله كعافية ومن شر كل ذي عين مدئل وصاحبه وإلى يستئه وبعوه إسنا الله كعافية قفها مدحيسا أدقى عن هذا ليسا وعدكو آخر ليسا تضوجر اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما تزهو آخر ليسا. اللهم رب الناس إلهي يوم دتك ربي قولوا ربي دتك إلهي يوم أذهب البأس إله تكسي حنوك واشفي إله شافي أنت شافي إله أذا شافي قفك روح مشافي اسبتال روح مشافي ولاد روح مشافي دكتور روح مشافي إله أذا شافي قفك وإنه تاس داد واتو والعافى مالي أنت شافي لا شفاء إله عافى من مجرى إلا شفاءك عافماتك هذا أذكر في الموضوع شفاء لا يغادر سقما عافمات وخدم بين الحنون واتكو عرين تضرب جربة تكو عرين ماشي حنون يسوع أيضا ما تغناي وعدك عن تسالي وعدكو آخرين سورة الإخلاص قل هو الله أحد سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق سورة الناس قل أعوذ برب الناس وعدكو آخرين تضوجر هذا كورا يا واحد عظيم إن أن بغضي قرابض marka waxay sheegeen
cunug yar inuu naaska diiday marka waxaan ku yidhi cunugii keeno cunugii ayay keeneen mucuudateynka iyo wixii ii fududaaday oo ruqiye ah ayaan ku akhriyey cunuga waxay dhaheen naaska wuu nuugi jiray laakiin hadda beriyaa naaska ma nuuga naaska wuu ka soo istaagay mucuudateynka ii keenaa yidhi mucuudateynka iyo wixii ii fududaado oo mataqaanaa qur-aan aan ku akhriyo orad hooyadii ugeey ha nuugaan yidhi ayagoo ordaayo bishaareen ay ii imaadeen wuu nuugo cunugii naaska cunugii yarka ahaa naaska waa nuugo ilaahay baa ku mahadsan walaa xawla walaa quwata ilaa billaah awood iyo xeelad allah iska leh ilaahay unbaa awood leh bini aadan awood ma laho qisooyinku way fara badan yihiin waxaa dhacday hadda ka hor ina mataqaanaa nin wadaada loo keenay qof dumar ah qofta dumarteed aad ayay u xanuunsanaysay jirka ayaa gubanayay meel looga badan ayay garan lahayd wadaadkii wuxuu yidhi ii keena biyo wadaadkii wuxuu yidhi biyo ii keeno biyihii ayaa loo keenay wuxuu ku akhriyay faatixa bilbinaas bilfalaq iyo wix ilaahay u fududeeyo qur-aan ah biyihii buu wejiga ooga shubo gabadhi hal mar bay degtay jirka u qabooba biyihii qaarna waa cabsiyey ilaahay baa caafiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay allah in barakeeye وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إيش إلهي سبحانه وتعالى ومدي ساكعافي قرآنك إلهي بالوعى في الماضي إيش حنونا فربضنا أي صوبتها حنونا هذا فربضنا أي إيش صوبتها xanuunadii sababto waxaa ka mid ah madax xanuunka jir xanuunka waxaa ka mid ah qofkii oo mataqaanaa farxadda ay ka tagsiiso waxaa ka mid ah mataqaanaa cunto la-aan waxaa ka mid ah mataqaanaa walwal joogto ah calaamadahaas isha iskale isha hadday ruuxa gashana waxaa macquul leh inuu jinnina meesha soo daakhilo marka allah in barakeeyo halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa ishana brograamyo fara badan baa uga hadli doonaa allah in barakeeyo addaal cala alkhayri ka faacilihi inaad ummad usii sheergaraysaan oo mataqaanaa meel dheer sii gaarsiisaan oo qof noocan u xanuunsan uu isku daaweeyo qur-aan ama ducooyinka hadda aan soo akhrino uu isku daaweeyo ama qofkii ilaystay haddii la garanayo uu u weysaysto kabacdina isagana uu ku qabaysto waa wax aad iyo aad u wanaagsan الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.